ninkii qabay ayaa wuxuu ku yiri cunugan walaalay aad wadatid madaxu iga qabtay xal u raadi markaas waxay tiri cunugan aniga xataa markaan dhalay ma rabin inaan dhalo ninkii dhalay cunugan oo dhintay ayaa wuxuu jeclaa inaan ilmo loo dhalo saas darteed ayaan cunugan ku dhalay ma fahantay waxaana u raacay intaas wuxuu yiri haddaad uur i yeelato ee cunug ii dhasho balan waxaa igu ahuu yiri inaan kuugu qoro baartamentada gurigan aan degana adiga magacaaga kugu qoro saas darteed ayaan ogolaaday inaan uur yeesho ee cunugan laakiin cunugan jecel uma qabin maxaan sameynaa wuxuu yiri daawada cunuga ma jirin ahaa daawada dhakhtarku usoo qoray sun aan ugu daraynaa si soo dhinto ayadana sidii samaysay oo ninka hadda qabo yiri cunugii markii sunta la siiyey habeenkii qolkiisa ku soo xirtay subaxii markay u tagtay cunugii waa meed subxaanallah ileen waalidka markuu darooysta yahay oo faa'iido lahayn oo nolosha ka dhaco ilmana manabiye naftiisa oo nacam ilmo tabar u haya hada qofkaas ba hooyaa dhigi karaa hooyo mal dhigi karaa subxaanallah qalbi adka bal qisadan iyadoo bilaaw ilaa dhamaadka insha Allah aan wada dhegeysanay nakacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qisadan kolay marka qaarkood qisadan marka dhageystay waxa igu soo dhacday waxa jiri jirtay wali way jirtaa gabdho jecel inay wareegaan by hof inay naag wareegta wargala amal wareegtooy lugcad marka gabadhan waxa waaye qisadan ku socoto waa wareegtooy wax kale dhigi karo wareegtooy lugcad yani inay wareegto adduun soo qasto inta ka soo qasto ciideeda say hooyadeed aabad u daba taagnaayeen way ku daaleen qaati billahi ka taagnaayeen waxay samaysay wiil oo ma sha Allah nin iska shaqaysta alxamdulillah waxba ka maqneen maxaa lahaa nin shaqaysto shirkad u shaqeeya ayaa gabadhii u jeclaaday gabadhii u shaqaansada wuxuu yiri walaalay waxaan rabaa inaan ku guursado reerkiini aan ka soo doonto waxay tiri hadaa reerkan iga soo doonto mi ii ballan qaadi tiri inaan xurriyad aan ku noolaanayo yani saan rabo u dhaqmay wuxuu yiri xurriyad lama aha adiga ba xurriyad ku wada noolaanaynaa ii sheeg reerkiin reerkii u sheegay reerkii markii u sheegtay adreeskii wixii dhan siisay telefoonka siisay reerkii soo wacay reerkiisa isagoo wato ayuu reerku yimid wuxuu yiri waxaan rabaa gabadhiinii waxaan kaga soo doontay inaan guursado guur xalaal ah aan guursado reerkii tabcan way ogolaadeen sababtoo wuxuu dhigay nin degan oo ma sha Allah ninkii hadii si fiican u sii wareysteen wuxuu ogaadeen nin shaqaysto nin meel ka soo jeedo nin balwad lahayn inuu yahay sidii ayay reerku ogolaadeen gabadhii waxay tiri waxbaana qodbo maxaa la jiray qatuub iyo madri eesh waxna raadinin waxay tiri ciyoon oo dhameystire aan ka baxay guriga maanta inta u socota inta ka timid iyo nafta la dhijidil iyo qarafaad la ku jira hayo arooskooda wuxuu loo dhamiyay gurigooda halkii markaasay qoftii ma fadhi kartee inta wareegta adiga wuxuu ku noqotay wiilkii xataa inuu shaqadii soo yareeyo oo iyada daba socdo ilaa bala asal uga gacmaha la galay inka alla toosiya toosama si walba wuxuu ugu sheegaa wala hadlaa waa ag fadhiistaa yani qofka asaa jeclaada asaa soo raadsaday adiga rankata qoftaan wali waxay rabtaa bayhoofkeedii iyo wareegeedii ha ahaatee marka dambe wuxuu yiri walaalay waxaan rabaa inaan family kaamil noqono aad u naqsho wuxuu sii walba inka ku dhasho degi doonto waxay tiri guriga aan degana hadaa isiinis ya wadala waxaan diiday inaan dhalo wuxuu gurigan lama aha ballan waxa uu yiri inka daa idishiido gabar wiil waxa ilaahay siiyo caafimaad qabaan ballan waxa uu yiri kugu qoro uur markay yeelatay uurkii kadib way dhashay wiil ilaahay siiyo markay saas u dhashay gurigu ku qoray ballantu waa ka soo baxay guriga markuu ku qoray qaftaan ma fadhinay wali sidii u socotaa cunuga saas ka haysto sal rafaado shaqada duu aad reeraha ugu taga adiga soo u rafaasana cunuga waa cunug iska yarow ilmahan sanadka jiro marka dambe ninkan xanuunan waa qabay wadna xanuun iyo adduunyo qabay haska haatee marka dambe shil baawur ayuu galay shilka baawurka markuu galay isbitaalka la geeyay kadibna waxa la soo sheegay inuu dhintay Allah yarxamo dhimashadiisa kadib yaa silci doon marka cunugii saqiirka ahaa lana waxa loogu tagay hooyan kuma tilmaami karee
هو إلهي بقى أسكسيه قف عن بهوية نم استاهل استاهل كذا إهم أيا الله هو يقولي عنقي وحفيري مره باهذا رفاتك السلعة غيرك عنقان دلين أيا للدعوة وحدهن عنقي نقوريج من قوريج نايت عنقي أنا دلين وحكي عبسنا ساعة عنق دليل نقوريج قوري هذا أنا كان اللي يراد مركزات ترتيت أي عنق ورقت ما نجعل وقبته ما بعهبه شيء شكت عنقي مركا صور رفاس صناي أي وحي هالشيء نين سيدي ذو كلاء قشن كلا وذاخذ لا صعدو بيرك إنك إسلا قلعان قمرك إسلا عبو وحوال بإسلا سميه أي مركا تنبهش نينك وحو يري أنا ما قبو يري يمحل يجري قري أن تقول دو حيث أنا قري قبيت نينكي إخبي غد انتي أي قري إيقا انتي قري أنا كقرن قري أنا اسكو قرسنين نينكي اسكو قرسنين قري إسلا دقي حسلا دقان محمي عنق يامل كوك خليس وعلي دلي أو قدرتا مكوسي قيلي هرانتي أو سيدرتا أساق مركو يرا نقا مسقيليس عنق دلي عمل ويال عنق سيساسو أهاتي عنق وحو نقضي عنق جرالو لأنه دلكي لقى بدو جبتا كبادات عنق مركو حاسو سلامو أبيهيس إنه ساحبيهن ودخترها عنق يقضي سنو يجمد وحو يري عنقان وحو باهايا داوين لو قرو داوين وكو قرايا داوين كاس وإنات سيسا وحتر هاي داوينكي أقري داوينكي دونين ويكينين داوينكي مركا داوينك انتان لكينين أيانينكي وحو يري عنو كان قيلي سوير ونوه ناقا قبتو يري لكن هال بلينا كو هايا هاي عنو كان سا اسكو دافي نايتو إيه نافي وابرباي سيدان لو فهمينو يري أنا كان نلا قبنو يري يا داود الأكتر كسو قري أيان سنكو دحلا بينا يا سن أنكو قسينا سبحان الله سنكو مركا كو قسنا واسينا يساهو يري دلف يروكو ديولا مرتا منوصونا قناو قيليس هيوا داودي سوقدين داودي سنتو سوقدين سنتو يقدرين داودي عنك دكابوسيس هبين كسريرتي سيجيسو كل كيس البابك وصلابت واساحدين صبحي او تكتو عنقي هديك قديس وقت انت واسيرت حتى اوهين مجرتان كلها عنقي سايدي ربتوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله عنقي وحوينا اسكا دغتay dirsiida isku soo baxeen xiriirihiisa wacday wuxuu tiri cunugii waa dhintay cunugii waa la noociyay waa isku dugdugay ala dhaqay xalqay qabrigiisi saqiir aakhir dhakhtarkii ayaa wuxuu ogaaday cunugii inuu dhintay wuxuu yiri soo ku dhima kara subhanallah cunugan wuxuu yiri jir oo ku dhinto ma haynin iska qandheysnay waxaana dareemay cunugii in qandhadii jirkiisa dhib bakteeriya ku jirto داوين حانو قروير أنتيبيوتيك هي أنا كنت داوين صن أم قرني ما حقلدم قروتي تعسيد كجست حول داوين ناكت مركي أركتي نينكي وابن حتى حس الدكتور كان وكشف روا إلا ما دكتور كشف روا على أي تعالوا حيري داوين كي أو داوين كي أكنت داود هدو قد كدي داود أنا حيري حتى قلت كجرو الشركة داود أنا صارت أي هلا دعونا داوين كي وقاعد حوجي غيبت بارد شير باشك شيء باكي مركي البحر وحال وقاعد إني سن كجرت سن إني كجرت أهل وقاعد بوليسكو جاي وحده سن تانو حيري شركة سن داو كسو دريس ما جرتو له عنقان أول بناكتان ما إيسان ربنا يجري نينك أي كان ستنا يدو كسيدنيه مركو عنقان وحان أمالينا ويري بوليسو إن عنقان لدري إن كان أكتر مسوت هذا الكيس على سوقات هذا اللي بارع عنقي قبري اللي قرشها دبلو سؤالي إن لا بارع قبري تقولك اللي قصو بحش هاد يبارس لو علي ولا بارع عنق هادي لا بارع عنقي وحال وقادي عنقان إن صن لو قدلي إنه قدنتي صن تداود كجرتي لسي أو قدنتي لبضا على سقطتي ولا كان نينكو وحو يري أنا بلانك وسودجي لكن هو يس إذا أقدرتي بسيس أيضا وحي ترهاوا سيت القيليس إبوقيس يا مدح إذا قبتي هاي دافع أصدها يقول بقى أنا عنق مريبني تري نينك علي أيها ربيتر نينكني وقهر من مكحة أورانو يري وحي أورانو قلعا إنه أبيس كدفتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل مال هسه جوجان ملفيو يا كاس هو يا مليكا يا إلا قفكم مركو ماندوري استعماله وحول بكفي لواي هو يا ما نقرأ أبنا ما نقرأ إلا ماندوري استعماله قفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
hooyo ma noqon karo aabana ma noqon karo laakiin awlaad ilaahay waxaa uga baryaa awlaadaas masaakiinta ee jirka lagu abuurayo dadkaas daroogada isticmaalo ilaahayba masaakiintaas kama dhaliyo maxaa yeelay way dhibtoonayaan saqiirada masaakiinta wallahi way dhibtoonayaan subxaan allah ilaahu naga hay astaghfirullah alazim shay kaliya waxay tahay wadamadan hadda aan joogno hormaray marka uur yeelatid su'aasha lagu weydiina waxay tahay sigaar ma cabtaa kaniini ma isticmaashaa daroogo ma cuntaa daawooyin kale ma isticmaashaa marka su'aalaha lagu weydiinayay ku jirtaabo hooyo bar hadda ilaahay ka dhigay waxa waaye tooba ila allah ina tiraa waxa ku jirta dhex baxay ilaahay shucuur kale ku siiyay ilaahay shucuur kale raxmad kale ku gashay ilaahay awlaado jirkaaga ku abuuray subxaanallah yaa see ku keentay ilaan cabtoy sember cabtoy aan maqlaa jiriye ilaahu noogu nabadiyeel waa subxaanallah allah soo hadiyey ummadda qaar markay saas yihiin allah soo hadiyey dadka maandooriyaha isticmaalo ilmaha dhalayaan ilmahooda dhibaato badan ay qabaan ilmaha masaakiinta wallaahi xaqa laga galay markaasoo kale wallaahi xaq badan aa laga galay subxaanallah allah kariim ilaahay u gargaaro wallaahi sababto aniga ma la yaabay sababto hadda reerkii oo ilmaha yararka shiishada siinayo shishad intay shishad wax ku daran shishad kaligiis ma ahayn wax ku dareen ilmihii masaakiinta la salsalaaay hadii la weydiiyay ani waxaan dhihi haliga gelinaan dhahay waxaad maxaa la jir TikTok subxaanallah haliga gelinan oo aniga walaalkayaan ka soo qaadkota subxaanallah see hooyaa tahay ilmo yarar dhalowsa aad bahaysataay maxaa shiishad iyo qashin iyo qashaafil guriga acuudu billaahi min ashaytaan guriga keen oo ilmaha yararka loo siinaa saqiirada war marka adduunka aniga markaan ilmahaas arkay ee sheekadan aan soo dhageystay aan arkay waxaan siray weema waajirta ma jirto ma dhahay waajirta sababta nadartu bil'ayn inshaana baqabata bid Soomaaliya oo ilmooda shishadii dhinaca kaga siinayo dhuuqayo oo ilmiiska alaalaxayo waxay doonaan iska sheegaan saqiirada subxaanallah ilaahuna nabadiyeel awlaadan amaano waa awlaadan saqiirada maska ilaahay ku siiyay amaano waa amaano ilaahay ku dhibto waa marka amaanada inaad dayacdid waxa doonta ku dhaqantid maahan saqiir markuu yahay cunug waxna ma ogo waa bahaahim wuxuu og yahay ma jirto saqiir waa inuu adiga tarbiyadooda iyo waxa laga rabaa iyo mas'uuliyadooda ku saaran tahay maaha marka in maxay ahaato le daroogo iyo qashin iyo balaayo ku dul cabtad kadibna aad gacanta ka saartay tiraa cunug dhadhami subxaanallah ilaahuna nabadiyeel oo xaqa allah tusiyo waalidiinta qaarkood dhibaatooyinkaas haayaan waxaan dhihi lahaa xaqa allah tusiyo idinkana soo duceeyo insha allah wada duceynina ilaahay idinkiis waxaan leeyahay qisadan intaas oo ku egtaa insha allah qisa lamid insha allah waxaan leeyahay share like subscribe kana iloobina qisa lamid insha allah saad qisa walbana adulo socodsiinta kambalelka furo soo ku soo gaar insha allah hadii ilaahay yiraahdo waxaan idinkaga tagayaa cimri dheer caafimaad bash barwaaqo Soomaali meel walba joogto allah nagu nabadiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.